يبانك الوحن راين وافقيسي رالياني كان قوي ورنا قبيودا kulan wanaagsan ku soo dhawaada Salma Vlog and Entertainment markana waxaan idiin haynaa qiso cajiib ah tan waa cusub tahay subscribe dheh oo gambaleelka furo si aad noola socoto warbixinada iyo qisooyinka kale aan soo gudbin doono insha Allah farxadiyo nashaadkaagu waa niyad samaantayda wuxuu ahaa nin ka shaqayn jiray kawaanka hilibka meel magaalo ah ayuuna ku noolaa macaamiil badan ayuuna lahaa oo hilibka ka iibsan jiray maalin kastana u iman jiray wuxuu toosi jiray ama uu kici jiray habeenkii niska dambe ilaa waa barigii markuu soo dhawaado ayuuna xoolaha uu soo qalo kadib waxa uu keeni jiray meeshii meherada u ahayd ee uu hilibka ku iibin jiray si ay dadku macaamiilka u ahaa uga gataan waxa dhacday inuu habeenada kamida isagoo xoolihii soo qalay isla markaana dharkii dhiigga lahaa wata wana socday xaafadiisa uu maqlay dhawaq qaylo ah oo weliba gurigiisa meel ka agdhoweyd ka yeeraysa go'aan ayuu ku gaaray inuu ku leexdo meesha qaylada ay ka soo baxaysay si uu u arko qofka qaylinayay markuu tagay ayuu waxa uu la kulmay nin qolo tuuga ahayd ay toorey gelgeliyeen jirkiisa kadibna ay ka carareen asagana ninkii ayuu tooreydii ka siibay ninkii oo xanuun la ildaran ayuu cusbitaalka ula cararay si uu badbaadiyo maadaama xaalad halisa uu ku jiray dhiigbaxna uu markaasi ku dhacay laakiin nasiib darro ninka intii uu sii waday cusbitaalkana uuna geyn ayuu naf baxay waxaa ku soo baxay dadkii xaafadda deganaa waxayna tuhmeen inuu ninkan isaga dilay maadaama uu watay dhar dhiig leh oo ugu dambeyn ninkii waa la qabtay ciidamada booliiska ayaa lagu wareejiyay ninkii maxkamadda magaalada ka jirtay ayaa la saaray waxaana ugu dambeyn lagu riday xukun maxkamadeed oo ahaa mid dila nabiyada qaar kala kuleel badan oo waxaadan samayn waa dhibaato weyn inaad dusha saarato waxaa la gaaray xilligii qisaasta lagu fulin lahaa ninka lama sabitay balse maalintii toogashada loo ballamay ayuu cod dheer ku yiri inta aan la toogan wardadow anigu ma dilin ninkan balse naf kale ayaan gooyey calaamad su'aal ayay dadka saartay warka ninkaas uu yiri in ninkan uu dilin hase ahaatee naf kale uu gooyey sheeko ayuu ninkaas ka warramay markaas kadib ninkii la toogan rabay ayaa waxa uu sheegay in 20 sano ka hor mar laga joogay xilligii uu dhalinyarada ahaa uu ka shaqayn jiray meel uu dhex mari jiray webiga waxaana uu ahaa nin doonle ah ama dadka doonyaha kaxeeya oo dadkana kaga gudbiyay webiga taariikhda uu soo qaatay waxaa ka mid ahayd maalin inuu la kulmay hooyo iyo weliba gabadheeda oo doontiisa ay soo raaceen isagoo sheegay inuu gudbiyey maalin kale ayuu haddana arkay maamadii iyo gabadhii sidii si la mida ayuu haddana uga gudbiyey webiga oo jiinka kale ee webiga ayuu geeyey 2 jeer ayuu la kulmay gabadha iyo hooyadeed doonlihii waxa uu sheegay in gabadhii uu caashaqay ama uu jacayl u qaaday ka helitaana haddaan hanashada naftaada naftayda horo ku doonay waayo waxay ahayd mid qurux badan allana u dhameeyey hannaan gabdheed waa sida uu sheegay waxa la moodayay dayaxa 14aad gabadhii waan isbarannay doonwadihii waxa uu sheegay inay haasaaween ama ishukaansadeen muddo bila ah waxaana na dhex maray buu yiri jacayl mugle waxaan ku heshiinay inaan midowno oo aan isguursanno gabadha aabaheed ayaan u doontay si wax waliba loo dhameeyo waana la ii diiday gabadhii dib dambe uma arkin 2 ilaa 3 sano kadib maray ka soo wareegtay waan ilaawi waayey haddaan qulu wardayni wixii qubta laga samrayni dadnimada lagu qancay
haddaan dumar lala qoslaynin nolosha lala qaybsanaynin jacaylkan cidi qirteenba. ninkii naaquudaha doonta ahaa ee webiga ka dhex shaqayn jiray dadkana ka gudbin jiray ayaa qisada isagoo kasii sheekeynaya waxa uu yidhi maalin ayaa gabar ilmo wadata waxa ay iigu timid halkii aan dadka doonta kaga qaadi jiray si aan uga gudbiyo webiga. waxay ii sheegtay inay raadinayso in webiga laga gudbiyo. 2 cunug ayaa la socotay gabadhaasi, laakiin markii dambe waan aqoonsaday in gabadhii ay tahay oo aan jacaylka u qaaday 2 ilaa 3 sanana aan isweysanayn. aad ayaan u farxay. waxay ii sheegtay in la guursaday oo ilmo ay dhashay, balse waxa uu yidhi shaydaan ayaa ii qurxiyey oo waan damcay. kolkaan u soo dhowaaday ayay tiri allah subxaanahu wa tacaala ayaan kugu dhaariyey ha ii soo dhowaan, balse warkeedii dheg jalaq uma siinin oo cunugii ay wadatay ee yaraa ayaan u laalaadiyey webiga. waxaana ku dhahay haddii aadan isku kay dhiibin waxaan ku tuurayaa cunuga, balse ayada way i barisay oo aad ayay ilinta uga qubanaysay, waxayna ku qaylinaysay walaalow ha iga dilin cunuga. doonwadihii wuxuu sheegay in cunugii sidaan biyaha ugu haayay ugu dambayn uu naf baxay. cunugii kalena sidaas ayaan u dilay ayuu yidhi oo isku qaab ayuu biyaha inta uu geliyey ayuu ku laalaadinayay. iyadii keliya ayaa soo hartay, waxaana uu sheegay in uu wax ka qaadi waayey ama uusan u galmoon oo ay la dagaashay. markaas ayaa iyadiina uu sheegay in webiga uu ku tuuray. meesha ay dhacdooyinkaas ka dhacayaan oo dhan waa webiga guntiisa oo doontii ayay saarnaayeen. ugu dambayntii ninkii ayaa yidhi wax weliba oo hagardaamo ah oo aan sameeyey waxa ay noqdeen 20 sano ka hor in dhibkaan galay maanta layga goynayo. sidaas ayaana ninkii lagu toogtay oo loo dilay. dilka loo tuhmay in uu geystayna ma ahayn mid isaga fuliyey oo koox tuuga ah ayaa ninkaas dishay, balse 3 qof ayuu hore u soo dilay, gabadhii uu jeclaa iyo 2 cunug ay dhashay, waxaana ay ahayd marwo nin kale u dhaxaysay. gudahaana daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa qisadaas. waxaad ka daawanayseen Salma Vlog and Entertainment. anigoo xasan xayi cabdulaahi ayaa idin xiriirinayay. haddii aad wax ka fahantay bal qaybta hoose noogu reeb fikradaada kommenti ahaan. sheekadan maxaase la dhihi karaa cashar ahaan waa laga qaadan karaa qisadaasi. inta aan dib dambe isku arki doonno daawadayaal saaxiibayaal, sheekooyin iyo qisooyin kale oo aan idiin soo wadnay insha allah. amaano allah. siduu fitimiinka indhaha ugu raya markaan ku arkaba adigu iftiinka siyaadisa inabti eraygaan ku idhi ammaantuna ku asranay warkayga halkuu ka yimi haddii aad ogaan lahayd manaha waad u ilayd.